بسم الله السلام عليكم اسku soo laabashada xisaabteeda qaliga waxaan rajaynayaa fiicantiin soo dhawaada sideen waqtigan ugu faa'iideysanaa si islaami ah ka faa'iideysi waqtigu ma ahan wax daruuri ah ee waa waajib qof walba saaran haddii aad doonayso naftaada iyo noloshaada inaad horumarisid waqtiga waa inaad ka faa'iideysataa maalinta waqtigu waa waxa qofka guuleystay ka dhigay qofka guuleystay qofka guuldareystana ka dhigay mid guuldareysta waxa kala saaraya waa waqtigooda sidii ugu faa'iideystaan qof walba oo inaga mid ah 24 saac oo kaliya ayuu haystaa mid la isku dhafaa waxay tahay sideed ugu faa'iideysataa 24 kaas maxaad si u qarash garaysaa balaadin la wadaago sheeko yar sheekada mar walba waxaan ugu bilaabaa waxay tahay sir faham qoto dheer lagu qaato waxaa jirtay gabar lagu magacaabo Sumeeyo maalin kasta waxay ku mashquulsanayd taleefankeeda iyo saaxiibadeeda iyo baraha bulshada maalin ay la fariisatay eeyadeed ay si degan ugu tiri hooyo ma ogtahay waqtigaaga inaad lumisay in ka badan noloshaadana aad khasaarinaysid ma iska daysid waqtigan aad maalayaan isaga luminaysid waad ka faa'iideysatid wax tarku la aad u qabsatid noloshaadana maad bedeshid hadalkaas ayaa si qoto dheer u taabtay Sumeeya niyaddeeda iyo qalbigeeda ayuuna galay maskaxdeena waa uu ka bixi waayay ereyadaas ay eeyadeed ku tiray ayaa si toos ah qalbigeeda ugu dhacay waxayna bilowday inay dib u qiimeyso waqtigeeda ka fikirto saacad walba meesha ay uga baxayso iyo waxa ay gelinayso halkaas ayayna ka bilowday isbeddelkii nolosheeda qodobada muhiimka ah ee sidee waqtiga looga faa'iideystaa qodobka koowaad ulajeeda la'aan lama gaari karo yool ee samayso ulajeeda cad waqti walba wuxuu kaaga baxay ogaaw saacad kasta waxaad ku bixinaysid ogow saacadaasina ha u shaqayso yoolkaaga fog ee nolosha waqtigaaga adiga ayaa ka mas'uul ah hadda yeelo yoolal cadcad ee nolosha aad ka gaari kartid kuwa sanadla ah kuwa billa ah iyo kuwa kasii badanba yoolalka cadcad inaad degsatid waxay kaa caawinaysaa inaad maalin walba aad u shaqaysid waqtigana aad ku bixisid haddii kale waqtigaas si maalayacni ah ayuu kaaga dhammaanaya degso yoolal cadcad hiigso meel fog waqtigaagana ka faa'iidayso qodobka labaad salaada iyo quraan akhriska ha ka tegin inagu ma dareensanin laakiin salaadu waqtigu waxay u qaybisaa si cajiib ah casirkii duhurkii maqribkii cishihii wax waliba way jaango'san yihiin wayna qaabaysan yihiin kaliya adiga u qorshay wax walba iyo waqtigooda akhrinta quraanka iyo fahamkiisa waxay nadiifiyaan qalbiga iyo maskaxda qodobka saddexaad sameyso qorshe maalinle ah daily routine lahaw maalin walba waxaad qabanaysid iyo waqti walba waxaad ku bixinaysid samee bilowga maalintaada ku bilow wax fiican oo khayr ku ah naftaada iyo noloshaadana u fiican qoro waxa aad qabanaysid kala hormari sida ay u kala muhiimsan yihiin islaamku wuxuuna farayaa ama nagu amrayaa qorsheyn iyo nidaam inaan yeelano nolosheena aysan noqonin ha iska yacdo ee ay ahaato mid ulajeed iyo hadaf leh laba nimco dadka badankooda ma dareemaan ilaa ay ka waayaan ama ay ka khasaarto kuwaasoo ah asixatu walfiraaq caafimaadka iyo waqtiga firaaqada qodobka xiga u isticmaal tiknoolajiyadda si waxtar leh oo naftaada iyo noloshaada wax kusoo kordhinaysa ee ha u isticmaalin maalayacni iyo waqti lumis isticmaalka baraha bulshada oo la xadiday iyo daawashada waxbarasho iyo muuqaalo noloshaada iyo naftaada wax kusoo korinaya waxay bedelayaan maskaxdaada iyo mustaqbalkaaga daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday dhalinyarada 16 ilaa 30 u dhaxaysa da'dooda in ka badan inay ku lumiyaan celcelis ahaan 6 saacadood maalintii taleefankooda ama scrolling social media 74% dadka isticmaala jadwal maalinle ah waxay sheegaan inay dareemaan howlkarnimo iyo xasilooni maanta laga bilaabo bilow maalintaada 10 daqiiqo xitaa ha ahaatee ama 5 daqiiqo xitaa ha noqotee ugu yaraan maalintaada quraan yaana laga weerin si aad u heshid nafis iyo maskax degan waqtigu waa sida neefta ma hayn kartid ma celin kartid mana kaydin kartid qof kasta oo kaa dhintay maanta wuxuu jeclaan lahaa inuu xitaa 1 daqiiqo u sii noolaado si uu toobad keeno adiguna waqtigaasi waad haysataa balse isweydii waqtigaasi ma ku danaysataa mise waad lumisaa الله صلوات الله وسلامه عليه وحده ليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات عصر كأيام كدارتي بني آدم وحو كسوغاني خسارة إلا كوي ربي رمي وعمل صالحا لا إما ذموي تاريخ الموضوع مهمة وقتي وحا سوق قتل روح سيد النبي محمد ما تقولين عليه سوركي ساعتي أسيقو وقتي كيس أكل قيبي قيب عبادة قيب بلشد وسينايو يا قيب كويس كيسا waa tusaale ugu wanaagsan ee aan raaci karno si aan ugu faa'iideysan waqtigeena ummad kastoo horumartay ama bulsho kastoo wax qabsatay horumarna gaartay waxay si fiican ugu faa'iideysteen waqtigooda balse maanta waqtigu waa midka ugu badan ee aan si micno dara ah u khasaarin laga bilaabo maanta go'aan ku qaado waqtigaaga in yar xitaa noqotay inaysan khasaare kaaga bixin faa'iidooyinka aad gelaysid markaad ilaalisid waqtigaaga waxaad kasbataa raali anshaa ilaahay waxaad noqonaysaa qof leh himilo iyo hal abuur waxaad helaysaa naxariis dulqaad iyo asluub suuban waxaad ka baxaysaa walbahaarka iyo jahwareerka waxaad qaabeynaysaa noloshaada maanta isweydii waqtigaaga ma ilaalisay mise waad khasaarisaa xageedse ku bixisaa waqtiga ugu badan maanta
dunida la joogo iyo waqtiga hadda la joogo waxaad waqtiga ugu badan ku bixisid ayaad noqonaysaa mustaqbalka. Ka fiirso waxaad waqtiga gelinaysa ma yihiin wax noloshaada iyo naftaada u roon. Ha noqonin kuwa khasaaray oo laga sheekeeyay ee aanan garanin qiimaha waqtigooda lumiyey oo khasaariyey ee noqo tusaalaha la sheego. aad iyo aad baad u mahadsantahay xabtida qaaliga. waxaan rajaynayaa maanta laga bilaabo inaadan waqtigaaga khasaarinin oo wax maala yacni uusan kaaga bixin. waqtigaagu waa noloshaada. aad baad u mahadsantihiin. waxaan inoo balana videoga insha Allah. ka faa'iideyso waqtigaaga. waqtigaaga ka faa'iideyso. maca salaam.